waxaan gudaha u fadhiyaa gaarigii caanaha qaadiyey ayaan gudaha u fadhiyaa nolosha baadiyaha ayaan 24 saacadood ku soo qaadan doonaa markaad arkaysaan waa xusbigii magaalada Hargeysa inta ugu dambaysa وكان كاسي بحنا حسبي بان سي مرنا حسبي marka gaariga caanaha xagga dama saaran ka jaamkaas xisbigan taaganahay muuqaalku wuxuu noqon doonaa muuqaal aad iyo aad u qurux badan waxyaabo badan ku horsan doona in la socod wanaagsan like share comment markuu idin soo gaaro ka xisbigan joognaa oo si soconnaa socod wanaagsan weydinka arkay asxaabta maanta gaarigaasan saaranahay oo in badan igu dambeysay marka nolosha baadiyaha ayaan soo eegi doonaa 24 saacadood ayaan ku soo qaadan doonaa oo xoolo soo eegi doonaa waxyaabo aad iyo aad u qurux badan ayaad ku arki doontaa nolosha baadiyaha la socod wanaagsan marka gaarigu wuxuu qaadaa caanahan waa in laga soo buuxiyaa caanaha marka damana ama sonkor baa lagu shubaa ama daqiiq dadku waxay u soo dirsadaan magaalada ama lacagtooda gudaha loogu ridaa marka gaarigu noolkiisa ka goosto taas waa taa gaarigana waxa la yiraahdaa dayni la socod wanaagsan هذه واحد طورة والله والله الدنيا عمل لسه هاي قاعد ما تقان قاعد هو سبيد سما هو كان كتاو صوت لسه قاعد halka ma naga hubta halka ay marka siduu yahay awshaw adag marka qaar wallahi dhaxan waliba xilli dhaxamaa lagu jiraayis awshay dhaxan isku taa wallahi waa dhagax wallahi habeenka raashinka badan ma garan saaxib habeenka raashinka badan ma garan saaxib ayay ugu darantay habeenkaas oo kuriisaba habeenka raashinka badan gaartay yo qaab badan maanta waa jimca ma garan saaxib waa faataxadi ma toocdamay namba markuu sida roobku daa ka waran markuu roobku daa ka daran waa baaysanay markaas uu baa daraq wala dhaca asxaabta halkani waxa weeyaan ceel biyood marka ceel biyoodkan maaha mid nature waa mid la qoday oo dhulka laga qoday marka carpet baa la dhigay marka carpetkaas biyaha haynaya biyahaas ayuu haynaya dadka deegaanka oo dhan ayaa loogu talagalay in ay biyahan ka cabaan marka waa carpet aad u dheer weeyaan oo ka duwan carpetada kale oo adag xoogno adag oo cadceed waxba ka tarin weeyaan marka waxa loogu talagalay in beeraha ku wareegsan laga waraabiyo dadka deegaankuna ay ka cabaan sadarkasan oo ka saasoo dhisan yahay carpet baa ku jira carpetkaas waa carpet aad iyo aad u weyn oo ka duwan carpetada kale oo aan cadceed u damage gareyn xaggan geedo sugsaga iyo waxyaabo kale ayaa ka baxay marka xilliga roobka bay biyuhu galiyaan ee maaha biyo meel kale uga yimaado meel kale wax marka halkan iyadu waa deegaan kamid ah deegaanada hoostaga deegaanka Farweyne oo iska deegaan yar oo iska tuulo oo iska baadiya marka wadanka waa dhulka ciidiisu casaanka tahay sida la sheegay dhulkan wuxuu ku wanaagsan yahay
wax beerashada horta waa ku wanaagsan yahay oo dhul wax beerashada ku wanaagsan oo aad wax ka beeran karto oo allahumma salli calaa maxamed wax beerasho aad ka beeran karto oo meel wax beerashada ku wanaagsan oo aan la mid ahayn meelaha kale, waayo sababtoo dhulku waa ciid cas buu leeyahay, kama aha meel ay kasoo jeedo buurto ama dhagax laga gaarayo malaha. saad arkaysaan ciidaas waa ciid cas, waa meel unique soo aan arkay waxa ku yaala beera yar waa ku yaalaan oo beera waa ku yaalaan, laakiin beerahaasi maaha beera aada u waaweyn sababtoo meeshu malaha riig wax la sugaa xilli roobaadka. marka roobku waa raagi karaa, waa iman karaa, waa soo dhaqsan karaa, marka xilliga roobaadka unbaa la sugaa. marka dadka deegaanku iyagu xilligaas uma iska sugaan, waqtigooda iskaga sugaan, maaha riig ku yaala meesha oo laga soo saarayo, maaha riig. marka shabagaas ayaa lagu wareejiyey meesha loogu talagalay in lagu ilaaliyo, sababtoo xaggaa iyadoo waxa ka muuqata beer baa ka muuqata, beertaas waa beer halkaa iyadoo ka muuqata. marka halkani iyadu waa meesha geedkeedii tani oo laga baxo ama markuu sii galana weyaan, halkan waa meel laga galo. marka meesha shabagaasa ku wareegsan waa meel loogu talagalay in xoolaha ay ka cabaan. tun badan ayaa iyadu biyaha kasoo qaada, biyahan way tuurtaa taangiya halkaa ku yaalo, waan idin tusi doona, ayay ku tuurtaa taangiyadaasi ayaa taangiyada muxuu ahaye biyuhu ay galaan. marka taangiyadaasina waxa weyaan taangiyo loogu talagalay inay biyuhu kaydsamaan. marka waa biyahaasi waa biyo u kaydsamaya, loogu talagalay inay halkaa ku kaydsamaan ama lagu nadiifeeyo, sababtoo dadka deegaanka ayaa iyagu halkaasi ka cabo oo u tahay meel ay nolol ka raadiyaan ama meel nololeed ay u tahay. markaas meeshaasi waa meesha ay biyuhu ka cabaan, dadka iyo xooluhuba usoo arooraan. marka tuun badan taangigaas ku qaadaa, taangigaas ayay geysaa, taangigaas ayaa meel lagu kaydiyo. halkan ma soo galaan xooluhu, halkan oo looguma talagelin inay halkan soo dhaafaan, waayo shabagan ayay muxuuha blastigan meesha la dhigay ayay damage garayn karaan, waa damage ku iman kara. marka lama ogola inay halkan yimaadaan ama ay soo galaan, lama ogola. marka meeshu waa meeshaas, waa meel aada iyo aada u weyn oo loogu talagalay biyuhu inay halkan ka tuuraan. markay biyahani tuuraan ay halkaa fog gaarsiiyaan ayaa waxa dhacda allahumma salli calaa maxamed inay biyuhu halkaasi gaaraan oo halkaa hadhow loogu kaydiyo. weli meeshii ayaan kusii dhex jirnaa, meeshan oo iyadu dee meeshii xagga wax lagu beerayay. markaa soo dhaweeyo halkaa waxaa ka baxaya waxyaabo kala duwan baa ka baxaya, khudradii baa ka baxsa, waxyaabo fara badan baa halkaa ka baxaya. marka aad iyo aad baad looga faa'iideystaa inta xooluhu cabayaan, maaha dadku waa ka faa'iideystaan oo waa meel laga faa'iideysto oo loogu talagalay inay noqoto faa'iido xoolaha iyo arigaba u faa'iideysa. marka waa meelshaas, waa meel diyaarsan, waa meel loogu talagalay in ay xooluhu ka cabaan. marka xoolaha ayaa wax meeshaasi ay ka cabaan oo dhulka ciidiisu cas tahay. halkaas takaariya la yidhaahdo, meesha takaariyaha fuulana oo deegaanka saa u eg, deegaan aada iyo aada u qurux badan oo waxa weeyaan hawlihiisa wata kuwa biyihii halkaas ka isagu waa taangigiisa darkasaan. waa xilli ay cadceedu naga sii dhacso, halkaasina iyaduna weli waa meeshii wax laga beerayay ee beerta ahayd. marka waa xilli ay cadceedu sii dhacso, marka drone footage baanan haynin, laakiin intaana waan iska soo diyaarin doonaa insha allah. muuqaalkan waxaan rajeynaya inaad ka heli doontaan oo ay dadku wax ka baran doonaan. waa muuqaal ka duwan, wax noqon doonaa muuqaalada kale, muuqaal aada iyo aad uga heli doontaan oo deegaanka aad ku baran doontaan weeyaan, iyo sida dadku ay wax u habeystaan ama u beertaan beeraha ama sida biyaha loo kaydsado ayaa halkan laga baranaya. maaha marka mashruuc yar, waa mashruuc aada iyo aada weyn, lacag baa ku baxday, kharash baa ku baxay. marka waa mashruuc weyn weeyaan. halkan iyadu waa meel kale oo dadku ay biyaha ka cabaan, biyaha loogu talagalay in laga cabo. marka biyahaas dadku halkan ay iyagu ka cabaan, maaha meel dadku aanay xoolo ka cabaan, waa dadku keliya. bahalka loogu talagalay waa bahal biyaha qaboojinaysa oo habeenkii markay dhaxantu ku dhacdo waxay ka dhigaysaa
baraf sidii talaagado oo kale ayay ka aad dhigaysaa. baan idinka Marka mahadcelinaa waqtigiina sidaas oo halkan kale waa barfu ah. xilli Marka galabnimo ah halkanina waa meel barka wax geeli ka sameynaa daaqaya geela iyo xoolihii baa geela daaqaya. wakaa barhkii kale halkaas ka daaqayo Meesha waa meel xoog geela laga halkaas gooyay u caleenta daaqaya marka lagu gooyo ee geelu geelu xilli casarnimo ah ayuu geelu waqti halkaas uu ku qaadanayaa maasha allah. wakaa geelu wuxuu leeyahay xilligan oo kale geela lama raaca waxa lagu sii daayay meel caleen laga jaray baa lagu sii daayay saa arkaysaan waxa weeyaan meeshana caleen baa laga jaray caleentaasoo ah caleen loo gooyey oo hadhow guriga lagu siinayo saa kale geelu halkaasuu iska fadhiyaa waqtigiisa xilligan jiilaalka ah. meeshan ayaa loogu talagalay qaajada si loo beynaya halkan jooga. marka geelu waka meeshaas waa handhasaab handhasaabku waa maradaas naasaha kaga xiran maradaas weeyaan oo loogu talagalay nirigtu inaanay hasha jaqin. marka waka halkaasuu jooga geelu ushaasaan qaatay oo aan sida iskaga celi geela aftuutay mar kugu soo yaaco. wakaa geelu halkan iska fadhiya shimbirtaas waa shimbir geela cunta geela badankiisu waa iska fadhiya laakiin geela qaar baa dhalaya oo waxaa la dhalaya iminka wakaa inta kale waa iska fadhiyaa. markaa geeli magaalada maaha wax laga yaaba geela lagu durduriyaa laga yaabaa. maasha allah aad iyo aad geela naxnaxsan badankooda waa dhalayaan tan oo kale inay dhalaso laakiin markuu taasi iyadu labadaa kale waa dhalaya geelaas. maasha allah geel aad iyo aad u qurqurux badan weeyaan. markaa muuqaalku wuxuu noqon doonaa muuqaal aan